السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتا ميل بدونكاد كجوجتان وادin salaamay waa markale walaashina faado macalin kusoo dhawaada maanta iyo muuqaalkeena cusbay sidaad ogtihiin sheeka ayaa noo socotay please markii kugu horeysa haday tahay channelkan soo booqatid subscribe inoo saar hadaa hore nala joogta like commentiga naga soo dhis dhiirigelin ayay noo tahay qisadan hadda idinkuma horeysa waa sheekadeeni taxanaha ahayd ee noo soco jirtay oo aad iyo aad ayaantaan bilooyinkan oo dhan aan uga gaabiyey waa idinka raaligelinaya inta la socoto sheekada qisada meesha ay mareysay iyo sida ay ku socoto aad iyo aad ayaa idinka raaligelinaya waxaana jecelahay insha Allah inaan sii wadno haddii Ilaahay yiraahdo marka sidaad ula socoteen qisadeen waxay mareysay Farax iyo Axmed oo soo jarmaaday wadankii Soomaaliya ka soo jarmaaday oo u sii socda caasimadda Nairobi safar dheer awgeeda gabadhii iyo wiilkii siday u socdeen diyaarad maysa soo raaceen gaari ayay soo raaceen safar dheer awgeeda markii ay kusoo degteen caasimadda Nairobi ay sidaas ay ku soo jarmaadeen ay ku imaadeen wadanka caasimadda Nairobi markay saas u soo galeen waxay bilaabeen in ay kireystaan hotel ay ku nastaan ay daalkii iyo juucii iyo daalkii rafaadkii safarkii dheer ay soo mareen ay iskaga baabi'iyaan bacdeen markii ay imaadeen meeshii luuqadii lama yaqaano wadanka waa markii ugu horeysay ay imaadaan meeshana meel wax laga bilaabo maysi aqoonin marka isla meeshii waxay isku arkeen wiil Soomaali oo meesha maraayo oo is yaqaanin isku luuqad ah wiilkii ayaa caawiyay wuxuu ku caawiyay sidii hotelkii ku kireysan lahaayeen iyo hotelkii meesha ku yaalay iyo meesha taksiga laga raaco iyo sida oo hotelka lacagta loo bixiyo intaba uu ka saaciday markaas kadib markii ay lacagtii hotelkii sidii ay ku bixiyeen meeshii ay jecleysteen inay habeenkaas ay iska seexdaan oo laba qol ay kala kireysteen ay seexdaan ay ku nastaan ilaa iyo jadwalka ay ka fahmayaan meelahaasna hoteeladooda adiga aad iyo aad ayuu iskaga jabnaay meeshii uu geeyay marka meeshii ayay ayaantaas dhan iskaga moodayeen way seexanayeen markii ay daalkii iyo jocjocoodii iska bixiyeen oo maalintii labaad ay soo baxeen waxay rabeen inay isku dayaan inay xoogaa yar wadankii siday isku fahansiin lahaayeen iyo siday waxyaabaha usoo iibsan lahaayeen iyo siday meelaha wax ugu cunaan oo kale u sameysan lahaayeen wadankana markii kugu horeysa aad iyo aad ayay u adag tahay sidaad ku fahantid adigoo bilooyin joogtid ayaaba qaarkood fahmaynin marka waxay isku dayeen inay waxay cunaan ay doontaan sidii ayay banaanka ku aadeen waxay arkeen maqaayad yar oo kasoo horjeeda oo maxaa la dhahayay oo cidan oo wadanka iska leh oo cuntadooda ku karsanayaan sidii ayay gaajo ayaa haysay mayse ka fiirsano waxay ahaayeen hataa mayse aqoonin sidii ayay maqaayadii ku kaleen ay ku cunteeyeen marka Farax iyo Axmed ayagoo sidii isku faraxsan oo la yaaban yihiin nolosha ay maanta ay soo galeen dhinacna ay ugu adag tahay maadaama meesha luuqad kale ay tahay dhinacna ay isleeyihiin maanta hadafkiina ayaad gaari doontaan noloshii waalidkii ayaad kasoo dheeraateen camal ma ahan marka waayo dhalinyarada waa badankooda waa saas marka insha Allah marka waxaan rajeyneynaa inaan qisadeena sii dhameystirno Axmed iyo Farax ayagoo meeshii maqaayadii ka cunteeyeen oo noloshoodii rabaan inay iska dhiciyaan magaalada ay bartaan ay hadaf ka gaaraan ay rabaan inay noloshooda wax ay ku soo baxeen ay ka miro dhaliyaan ayay maqaayadaas ay meesha sida sheekadii ay ku wateen sidee meesha jadwalkan ay u fahmi lahaayeen unbay iska dhaadhacsiiyeen marka sidii anagoo qisadii ay halkii noo sii mareysay maantana waxaan ku ekeyn doonaa qisadii Axmed iyo Farax halkan insha Allah taala biidnillahi alkariim inta aad qisadan aad la socotid waxaan jecelahay inaad sii share gareysid dad badan oo xiiseynaya inay jiraan ayaa laga yaabaa haddii Ilaahay yiraahdo marka qisadeena halkan ayay noogu sii ekaa doontaa haddii Ilaahay yiraahdo intaan ku gaari doono qisada ku xigto insha Allah taala biidnillahi alkariim waxaan idin rajeynayaa bash barwaaqo inaan ku noolaato caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh